بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. waxaan ummadda Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan eheladii iyo jifadii uu ka baxay sheekheeni Sheekh Cabdinaasir Xaaji Axmed waxaan uga tacsiyeynaynaa geerida xanuunka badan ee runtii murugada badan ee maanta ku timid sheekha magaalada Kismaayo lagu dilay lagu qarxiyay isaga iyo culimo kale. waxaan leenahay ilaahay tabaaraka wa tacaala sheekha hu naxariisto, shahaadana allah uga dhigo, khaatimo wanaagsan ilaahay tabaaraka wa tacaala ha ugu khatimo, ilaahayna qabriga ha u waasiciyo, hana u nuuriyo. dadaalkii iyo juhdigii runtii ummadda uu hayeyna ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu abaal wanaagsan ka siiyo uguna dembi dhaafo, jannadiisa firdowsa inuu ilaahay ku geeyo, cadaabkana ka xifdiyo, isaga iyo culimadii kale la geeriyootay ama lala dilay ee meesha ku tegay. tacsiyadaasi aniga iyo muasasaadka dacwada iyo inta waxgaradka ah ee arrintaasi ay xanuujisay ummadda Kenya ku nool ee Soomaaliyeed ayaa runtii gudbinaya tacsiyadaas. sheekhuna runtii wuxuu ka mid ahaa, ilaahay baa tabaaraka wa tacaala kolley cidna uu ammaani mayno, isaga addoommadiisa yaqaana, laakiin sidaan ku naqaanay wuxuu ahaa culimada miisaanka culus ku leh runtii bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda, adeega aada u fara badanna u haya tacliinta iyo dacwada iyo hami badanna xambaarsan. waxaa jira nin culimaa oo sheekha oo wax yaqaana laakiin aan hami badan oo ummadda xambaarsanayn. Sheekh Cabdinaasir waxaan ku naqaanay inuu hami badan xambaarsanaa, dadaal badan runtii inuu ku bixiyey sidii ummadda wax loo bari lahaa, loo islaaxin lahaa, afkaarta iyo fikradaha khaldan loogala dagaalami lahaa. waddanku markuu burburay Yemen buu ka soo noqday, 30 sano tagtay waddanka gudihiisa ku jiray, khatar badan iyo halis badan buu galay, marar fara badan baa la isku dayay hadda ka hor in la dilo. haddana maca daalika runtii muusan ka baqanin, mana uusan baqanin, mana cararin. ilaahay tabaaraka wa tacaala dhiiranaan iyo geesinimuu siiyey. ilaa maanta muddoba la daba joogay ay noqotay maanta tiisii. waxaan rajeynayaa insha allahu tacaala dadaalkii faraha badnaa iyo khidmaddii adeegii bulshada u hayay khaatumadeedii wanaagsanayd inay maanta uu helay. maxaa yeelay sida nabiga ka sugan sal alla alay wasalam axaadiis badan, ruuxa haddii isagoo diinta saxdaa faafinaya darteeda lagu maago lagu dilo waa shahiid. xadiidkii nabigaa tilmaamaya sal alla alay wasalam uu ku yidhi cumar iyo Cuthmaan iyo Abubakr Sidiiq, uu nabigu ku yidhi buurta Uxud iyagoo saaran, buurtuu ku yidhi isdeji, waxaa korkaaga saaran Sidiiq iyo 2 shahiid. 2 shahiid waa Cumar iyo Cuthmaan, labadoodaba magaalada Madiina lagu dilay, dagaal mayna ku dhimanin. marka shahaadada nabigu sal alla alay wasalam uu qiray waxa way xaqdarra lagu dilay. waxa loo dilayna dowrka iyo kaalinta ay bulshada u hayeen bay ahayd. ruux kasta oo muslima oo sidaasoo kale loo dilana shahaadaan u rajeynaynaa insha allahu tacaala. marka sheekha khaatumo wanaagsan iyo shahaadaan u rajeynaynaa. ummadda Soomaaliyeedna runtii wuxuu ka mudan yahay, waxa ugu yar waa inay u duceeyaan oo sheekha loo duceeyo. intuu waxbaray baa badan, maraakiistuu ka tegay baa badan, dadaalkii islaaxi iyo dhiig badan oo ummadda uu baajiyey baa iyo muxuu ahay badan. khayr badan buu muddadaas ummadda dhex joogay uu ka tegay Sheekh Cabdinaasir, ilaahay miisaanka xasanaadka ha u saaro. marka waxa ugu yara ummadda uu ka mudan yahay waa in loo duceeyo weeye, oo ilaahay tabaaraka wa tacaala loo baryo inuu u dembi dhaafo, xasanaadka iyo wanaagana uu adduunka kaga tegay iyo muddii hormarsaday ba ilaahay abaalgud wanaagsan ka siiyo. tacsiyadaas inaan ummadda u gudbino ama aan u gudbiyo ayay ujeedadaydu ahayd. waxaa kaloo doonaya inaan ku daro, keligii ma aha, ummadda Soomaaliyeed mar walba hadaf weeye, aqoon-yahankeeda, shacabkeeda, meel walba. waxaa maalmo ka horeeyey
qaraxii ka dhacay magaalada Beledweyne oo dhowr iyo 10 ruux ku dhinteen oo runtii aad iyo aad aan uga naxay dadkii dhiigoodii oo yaala in doorasho lagu dul qabsaday oo runtii arrin naxdin la ahayd Soomaalidu aad la yaabis marka qaarkood qaab dhaqankeeda marka dadkaas dhammaan xaq darrada loo dilayo muslimiinta ah runtii waa arrin xanuunkeeda leh dhammaantoodna ilaahay baan u baryaynaa tabaaraka wa tacaala ummadana waa uga tacsiinaynaa si gooniya waxaan doonayaa inaan farta ugu fiiqo Sheekh Cabdinaasir raggii saaxiibadii ahaa ee horey loo laayay buu ka daba tegay waana arrintaasi waa arrin hadaf ah ujeeddo weeye in ummadda indhaha laga rido aqoonyahankeeda la laayo culimadeeda la laayo ducaadeeda la laayo waxba aan loo hambaynin mana aha keliya xaqiiqadu inay tahay uun arrin yani ku eg wadanka gudihiisa laakiin waa hadaf ilaa meel fog xiriirsan weeye ummaddan indhaha laga rido culimadana la cabsi geliyo qodobkan doonayo inaan tilmaamo wuxuu yahay markaan culimada fariinta u farayo inta nool barnaamijta noocaas oo kale ah oo culimada lagu targetsanayo oo lagu laynayo oo ujeedadiisu tahay in la aamusiiyo waxaan dhihi lahaa hadafkaasi inuusan xaqiiqoobin oo uusan hirgelin waa in la isku dayo ilaahay baa garanaya naf walba xilligay dhimanayso iyo meeshay ku dhimanayso ninina gacantiisa kuma jirto ninkii cabsada iyo ninkii baqa iyo ninkaan baqinba nin walba maalin buu leeyahay waqti buu leeyahay meel ku dhimanaya waa leeyahay sabab uu u dhimanayana wuu leeyahay marka inaan laga baqin muxuu ahaay ummadda adeegeeda afkaarta khaldan in la saxo dadka laynaya qarxinaya wax burburinaya afkaartooda iyo khaladaadkooda in ummadda looga digo inaan laga baqin risaalada iyo waajibka ilaahay na saaray tabaaraka wa tacaala in runtii wax weeye la guto aanan dhicin in yani cabsigelinta iyo argagaxgelintaasi inay hakiso dadaalkii ay culimadu ugu jireen in dadka la wacyigeliyo in la islaaxiyo in afkaarta khaldan iyo caqiidada khaldan iyo fikradaha khaldan laga saxo ninkii dooniba ha wato intaasi ayaan doonaya insha allahu tacaala inaan ummadda u jeediyo muxuu ahaayey dowrka iyo kaalintaana ilaahay waxaan weydiisanaynaa sheekhu uu ku jiray in bedelkiisa ummadda uu siiyo wixii uu ka tegay oo fataawi badan leh oo kutub badan leh oo tafsiir leh kutubta xadiidka leh fataawi fara badan oo ummadda uu jeediyey leh ummaddii waa ka faa'iideysatay ilaahay waxaan u weydiinaynaa mar kale iyo mar saddexaadba inuu miisaanka xasanaadka u saaro innagana ilaahay tabaaraka wa tacaala dariiqaas wanaagsan muxuu ahaayey diinta adeegeeda iyo ummadda adeegeeda inuu ilaahay nagu dilo khaatimo wanaagsanna nagu siiyo. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.